السلام عليكم كلنتي wanaagsan ku soo dhaw muuqaalkan muuqaalkii hore hada soo daawatay dabcan waxa ku soo qaadanay copy and paste markaan joogno Photoshopka qaabkan waxna u koobin lahayn isla markaana waxaan soo koobinayna soo paste gareyn lahayn oo duplicate sameyn lahayn isla muuqaalkan waxaan ku arki doonaa waxaan ku raadayay task muhiim ah oo dabcan Photoshopka marka qofku ku shaqeynayo user-ka oo wax ku dhisan gareysanayo ama waxaan ku raadayay wax ku edit gareynayo task aad iyo aad muhiim ah oo boqolkiiba 90 soo noqdo kaasna waxa weey transforming inaad file size-ka inaad documenti ama waxaan leeyahay object meesha ku jira size-kiisa bedeshid inaad waxaan leeyahay image-ki meesha ku jira rotate gareysid inaad samayn kartid waxaan ku leeyahay wax loo yaqaan horizontal ahaan ama waxaan leeyahay size-kiisa samayn kartid waxaan leeyahay perspective ahaan waxaan leeyahay u weyneyn kartid inaad waxaan leeyahay waxyaalo badan si waama intaba aad u samayn kartid intaas oo dhan waa transform marka transforming kaas san u sameeyno waxaan u baahanaynaa soo furno documentiga aan ugu talagalay tutorialkan waxaan tagaynaa folderkeeni haddaan tagno Photoshop waxaan ka doonaysaa essential practice waa casharka saddexaad baan soo qaadanaa transform tools transformkii markaan dooran soo furmo transform marka waxa laga yaabaa inaad u baahatid transform marka joogtid tusaalahan documentiga kala ku jira inaad rotate ku samaysid vertically horizontal intaba inaad u samaysid rotate waxa u samayn kartaa inaad tagtid image then aad tagtid wax loo yaqaan image rotation ka rotate ka samaysid 90 ka samaysid ama aad ku noqotid oo ka samaysid waxa ku dhahay 90 dhanka kale ah inta waa ka samayn kartaa haddii kana waxaad tagi kartaa halkan toolka soo qaadan kartaa caadi oo rotate gareyn kartaa rotation ka qabkaas ka samayn kartaa marka Photoshop version-iska markaan joogno waxa laga yaabaa inaad adu hadda isticmaalayso version aan kan ka hayo CS6 ma isticmaalayo inaad CS6 isticmaalin ama CC isticmaalaysid ama mid tan ka dambeysay way isticmaalaysid waxa dhici karta marka maadaama Photoshop version-iska kala duwan yihiin features baa jira aysan kulligood wada lahayn salahan CS6 markaan joogno waxay leedahay meel tig la saarayo ku qoran tahay show transform controls wax ku qabataa transformka toolskiisa inay ku soo saarto soo markan tafaaxda click siiyo oo halka tigta ay saaran tahay transform controls way soo baxaya transform controls waxa weeye sagaalka maxaa ku dhahay button aad u jeedid saalan square-ka halka saaran 1 2 3 sagaalkaas saddexdaas waxa la transform controls kada ka qaado tigta dabcan waxa ay muuqanayaan oo file-kii ama object-kii meesha ay saarnaa size-kiisi si waxa ku dhahay easy oo bedeli karo marka tigta waa ka qaadaynaa si aan u wada faahno si guud u wada faahno qaabka loo sameeyo deesan ka tigta ay saarneen ama uusan lahayn waxa ku dhahay version-kayguba marka waxaan tagaynaa file-kii markaan doorano waxaan tagaynaa edit baan waxaan ka dooranaynaa wax loo yaqaan free transform waxaan ka dooranaa transform marka rotate buu leeyahay ama wax kasta filim horizontal buu leeyahay vertical intaba rotate hadaan ku dhufto toosrowaysa oo rotation hadba dhinaca doorto baad samayn kartaa marka ku badan baa ku jira in aad u practice-ayso loo baahan yahay waxa kaloo jira isagana wax la yaqaan free transform waxa inoo suurta gelinayaa waxa ka transform controls kan iska qarinay inuu inoo soo saaro talaabo markaan click siino dabcan baalka inoo dooran yahay waa wax soo baxeen control-ladii aan markaan day check qaadnay show transform controls-ki na ka qarsoomay markaas waa waxba ka bedeli kartaa waa rotate gareyn kartaa waxyaalo badan baa ku samayn kartaa haddaan enter ka waran qortaan waxaygi inta size gareeyo bedelo transform controls waa ku daayeen inaad meeshii soo martay haddana edit tagtid oo free transform ay ka soo doorato file halkaas bay noqonaysaa ama si dhib yar ah control T dhahay marka ay transform controls ka soo baxaan qaabkan ku samayn kartaa marka waxaan u baahanahay inagu si hawshan ugu fududaato kanoo kale saarayna waxa ku dhahay tigta laakiin waxa ku muhiimsan adiga haday sidoo halka u tig lahayn inaad fahansan tahay mar walba halka la tagi karo then free transform laga soo dooran karo ama control T la dhigi karo oo halka transformka laga samayn karo transform controls ka laga soo saari karo marka hadda kan waa saarsan tigta san inoo fududaadaan ka tigta markaan saarsano waxa inoo soo baxaya transform controls marka shaqooyin tira badan bay noqotaan waxyaalo badan bay inoo ku suurta galiyeen inaan waxa ku dhahay object-iga tusaale tufaaxdaas oo halka inoo taala inaan wax badan ka bedelno ama editing ku sameeyno haddaan u baahdo inaan size-keeda weyneeyo maxaan sameynayaa waxa samaysaa koonahaas ku weynsan koonahaas kuwan tusaale ahaan
kuwa u koreeya kaas saddexda u koreeya waxay ku suurtagelinayaan inaad kor u jeedi kartid dhinacaan u jeedi kartid dhinacaan u jeedi kartid taala kan kore kan dhexda ku jira waxay noo suurtageliyaa inaan saa u dheerayn karno haddaan rabnona inaan saa hoos usoo rotate gareyn karno hoos u jeedin karno maxaa ku dhahay image-keeni qaabka transform controls u isticmaalaysta waxay tahay klik markaan siiyo oo mouse-kayga dulgeeyo koonaha batanada yararka afarta lixda koonaha ku yaala waxa ii soo baxaya laba falaarood labada falaarood waxay tusinayaan kor u jeed ama hoos u jeed oo kor u jeed waa dheeray ama hoos u jeedo gaabi haddaan sii wadana waa hoos buu jeensanaysaa oo tufaaxigii hoos buu jeensanaya haddaan sii wado tusaale ahaan xaggana sidoo kale hoos u jeedo hoos u jeensanaysaa laakiin waa gaabin karaa waana dheerayn karaa labadana waa isticmaali karaa kan hoose waa isla asaga waa oppositekiisa wuxuu noqonayaa marka maxaan ku rahdaa inaan samayn karno kor u jeedino ama hoos ka gaabin karno dhanka kale kan waxay noo suurtagelinaysaa inaan xagga u jeedno isla markaana xaggana u dheerayn karno kanna sidoo kale waa isla oppositekiisa inaan xagga u jeedid isla maxaan ku rahdaa xaggana u gaabin kartid qaabkaana aad u samayn kartid oo wixii maxaan ku rahdaa aad qaabka u isticmaali kartid inaad dhinacyadii maxaan ku dhahay dimensionkii koonaha ahaa aad soo yareyn kartid kuwan koonayaasha ka waran marka haddaan fiirino tufaaxa tusaale ahaan markaan soo jeedno klik siino waxaa noo soo baxaya kuwa dhexda ku aadan maaha kuwa koonayaasha shaqo kale iyo noqotaan iyaguna tusaale ahaan haddaan mouse-kayga korgeeyo koonahaas si fiican u fiiri waxaa ii soo baxaysa markaan saa u saaro waxaa ii soo baxaysa falaar si waxa u jeedaa angle maxaan ku dhahay 45 ah oo chief ah waxay ka dhigan tahay inaad saa u isticmaali karo sidaana u isticmaali karo falaartaas haddii aan sii dhaafo ka war marka mouse-kay sii dhaafo si halaa ka soo baxo maxaa ku soo baxay falaar waxa ku soo baxaysa qalooc oo ku jirta waxay ka dhigan tahay falaarta markaan mouse-kayga dhab siiyo oo ku wareejiyo inaan rotate samayn karo oo maxaan dhahay tufaaxii halkaa ka rotate gareyn karo qaabka u samayn karo marka afarta koonayaasha ah oo koonaha geesaha jooga ama controlada koonaha ah waxay ii suurtagelayaan laba mid inaan size ahaan u weyneyn karo iyo inaan rotate ku samayn karo object-ga tufaaxii saa u wadi karo dabcan wax kasta oo rotate u baahan ama maxaan ku dhahay ku rotate gareynaysid waxay kaa rabaan haddaadan image halka soo rotate gareyn inaad halka ka jeedsid qaabka uu qaloocsado saas ku samaysid inaad wareejiso hoos u jeedin kartid waa very easy intaasay kuu qaban karaan marka ka waran haddii aan rabo inaan tufaaxiga yareeyo saa u yareeyo oo saa u wado anoo aan size-kii maxaan ku dhahday dimension-kii kharibin oo bedelin waxaan qabanayaa shifti markaan qabto oo saa u yareynayo waxay ii suurtagelinaysaa inaan si maxaan ku dhahay anoo tufaaxii dimension-kiisa ilaalinaya aan yareeyo oo qaabkii hadday afar ahayd afarteed ku yareyn kara haddii intaa ka badnaydna inteedii sideed u wadi kara waayo markaan xagga ka jeedo waa free qaabkaan doona waday laakiin haddaan shifti qabto si isla eg u yaraanaysaa qaabkaas ay suurtagelinaysaa haddaan aalta qabto ka waran aalta haddaan qabto iyadana waxay ii suurtagelinaysaa inaan centerka ku aruuriyo dhexda tusaale ahaan meel haddaad dhexda ku aruuriso laakiin weli waxaa ku jira free oo saasaan ururin kale iyadoo centerka ururaysa baan maxaan ku rahday haddana dhinacan kale u yareyn kara iyadoo centerka halkeed ku yaraanaysa haddaan shifti iyo alta isla qabto ka war shifti iyo alta shifti maxay noo suurtagelineysay inaan si isla ugu yareyno altana inaan center ku yareyno soo ma labadii markaan isla qabto labadoodu shaqada wada qabanayaan shifti aan qabtay altana waa qabtay anoo labadiiba hayabaan mouse-kii ku yareynaya centerka igu yareynaya dhexda maxaan ku rahday dimension-kii ma qaldamay oo si isla eg afarta qoon uga soo yaraanaysaa maxaan ku rahday object-gii tufaaxan oo kale hadda isticmaalayna saas usoo yaraanaysa qaabkaas oo kale isticmaali karnaa control haddaan qabto ka waran control markaan qabto mouse-kayga geeyo ka waran koonahaas ama koonahaas ama koonahaas waxa ay soo baxaysa si fiican u fiir control baan qabtay mouse-kayga koonahaas aan korgeeyay halka ka muuqda waxa iiga muuqda mouse-ku isbedelaya goortaan koonaga iyo cadaan bay soo baxaysa cadaankaas waxay ku sheegaysaa ama ku tusinaysaa in markaan control qabto cadaanka la korgeeyo aan maxaan ku rahday faylkii saa u jiidi karo xaga u dheerayn karo ama koonaha iman karo si perspective u yareyn karo
haddaan rabo kana xagga u dheerayn karo de wixii aan wax ka bedeli karo qaabkaan rabo u samayn karo ii suurtagelinaya controlku ama kan haddaan tago control haya isagana maxaan ku samayn karaa ama saanaan dhigi karaa ama saasaan dhigi karaa wax jiif aan ka dhigi karaa wixii qaabkaasaan u isticmaali karaa ka waran lixda xabo shaqada waa aragnaa mid walba kan kuwan rotate bay qabtaan kuwana saan u yareeyeen kuwana saan u yareeyeen kuwana xaggaas u bixin karaan kan dhexe muxuu qabanaya marka halkaas centerka mid ku yaala oo diirad ay soo jeedin kaas dhexe wuxuu inoo suurtagelinayaa marka waa centerkii isagoo centerka haddaan inta qabto isaga tusaale ahaan kaxeeyo halkaas oo kale centerka geeyo oo rotate ku sameeyo kawan baashi say ku wareegaysaa kaas center u noqonaya marka haddaad rabtid baalka inaad si centric ah oo meesheeda ku rotate garayso waa inuu centerka marba dhexda ku yahay haddaan control inta qabto halka click siiyo control inta qabto halka geeyo dabcan halkaas center noqonaysa mar walba waa centerkii halkaas oo marka isku wareegaysa marka kaas dhexna controlka dhexna shaqadaas soo qabanaya transform controls marka qaabkaas bay u shaqeeyaan oo ay yihiin maxaa ku raahday oo isticmaali kartaa faylkaaga u yareysan kartaa u weyneysan kartaa rotate u samayn kartaa haddii aysan lahayn photoshopka versionka wadaysan halka tigta la saarayo lahayna waxa muhiim ah inaad ka isticmaali kartid halkan tagi kartid edit tagi kartid then free transform marka ka soo dooran kartid qaabkaas aad u isticmaali kartaa control t shortcut ahaan ku dhigi kartid marka transform control guudaan sa loo isticmaalaa hadda u baahatid inaad dhowr fayl hal mar wada rotate garaysid sidoo kale iyadoo wada socda sidii shift baa dhahaysaa sidoo waa wada select garaynaysaa then caadi baa wada yaraynaysaa aabta iyo shift aad haya yaraynaysaa daarto mar rotate garayn kartaa easy mar walba waxa uu laaga baahan yahay photoshop ka rabta waxa la leeyahay wax ka bedelaysa inaad select garaysid haddaan kan kayga rotate garaynaysaa select gar dooranaya hadii kale halkaas aan ka wada dooranaya layers ka dooranaya ama halka auto select intaan check soo saarsado aan automatic la ka isticmaal karaa shift baan hayaa kan doortay shift baan siya kaasaan doortay shift baan hayaa kaasaan doortay markaasaan wax kooda bedeli karayo waa socda aan rotate garan karaa ama maxaa ku raadayay weyneyn karaa ama size-ka qaabkan doono aan ka dhigan karaa oo aan u baahanahay transform controls qaabkaas ay u shaqeeyaan waxana muhiim ku ah qaabka adi aad ku fahmi kartid oo waxaan ay ku familiar u noqon kartid waxa weeye inaad daawatid kadib aad wixii samaysid oo practice-kii waqti ku bixisid intaasaan kusoo koobnaa transforming iyo transform controls muuqaalka ku xiga waxaan kaga hadli doonaa masaxaada eraserka iyo burushka sida loo isticmaalo waa inoo yakuna badan waa xiiso leh